السلام الله عليكم. وأنا إذن سلام يا دمان أصحابتا بعد السلام. إن شاء الله عاوحن ربا إن أن إذن لو ذاقو سيدا لوغو استعماله كمبيوترك واتساب. طبعا واتسابك وحكو شقايا موبيلك انت بدن أما عادهم بحكو صباحي موبيل دين واحد عدا إن بدنا qofkii uu u baahdo in uu xog ku soo dirsado ama document ha ahaato ama sawir ha ahaato ama video ha ahaato inta badan way dhacdaa. Markaas taas waxay kaliftaa in qofkii ama mobilka inuu flash kaga qaato oo dabcan flashtan labada af leh ama uu kaga qaato USB geliyo oo kaga dirsado iyadoo aan taas aan ka duuleyno oo aan la rabin in aad USB maanta dhan hawl u martid. waxaa ka fudud talaabadan oo ah in aad WhatsApp desktop isticmaashid taas oo yani badanaa hadda la isticmaalo program waa jira laakiin waxa ka hawl fudud Chrome-ka iyo Opera iyo yani browserada support gareeya. hadda Chrome-ka isticmaalina insha Allah aan furno Chrome-kan soo furayna then xagga sare oo inta badan wax lagu qoro website-da la geliyo yani aad xafuraysaa xagelinaysaa web.whatsapp.com then xalada enter. okay marka halkaan maraysid waxaad soo qaadanaysaa mobilkaaga. okay koodhka ayaad rabtaa inaad saartid mobilka WhatsApp-ka fur then 3 dhibcood ee karka sare taabo then waxaad tiraahdaa WhatsApp web then camera aadi koodhka si fiican then hadda ku soo qabtay aynu tijaabina. okay assalaamu calaykum hobal touch. okay undirna. okay wuu shaqaynayaa sida jeedaan. okay hadaba seven ku ogaan kara in WhatsApp-kayga layla isticmaalaya soo deji karka sare then waxa fiirsaa in calaamadda desktop saaran tahay. okay haddaan ka baxo maxaa samaynayaa? haddaan ka baxo oo baxaya message-kaas calaamaddaas yar laakiin haddii aan ku jiro aanan ka bixin si kasta igama baxayso marka haddaan online ahay weeye si kasta haddaan yar ma baxayso. assalaamu calaykum waa idin salaamayaa.